injiilka sida Mataayo u qoray cutubka 13. maalintaas ciise ayaa guriga ka baxay oo fadhiistay badda agteeda oo waxa uu soo ururay dad fara badan sidan darteed dooni ayuu fuulay oo fadhiistay dadkii badnaa oo dhammuna xeebtay taagnaayeen markaasuu wax badan masaal loogu sheegay isagoo leh beerrey baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayay qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagaxa oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma dheerayn laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodxantiina way soo baxday oo ciijisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaleen mid 100 midna 60 midna 30 kan dhego wax lagu maqlo luhu ha maqlo markaasaa xertii u timid oo ku tiri maxaad masaal loogula hadashaa wuxuu u jawaabay oo ku yidhi idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada jannada garataan kuwaase lama siiyo waayo ku alla kii wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto sidaa daraaddeed ayaan masaalo ugula hadlaa waayo iyagoo arkaya ma arkayaan oo iyagoo maqlaya ma maqlayaan mana gartaan iyagay u noqotay wax sheegidda isaayos iyadoo leh maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya waxbaad arki doontaan idinmana dhaadhici doonto waayo dadkan qalbigoodu waa qallafsanaaday oo dhib bay dhegahooda wax ugu maqlaan indhahoodana way isku qabteen si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax ugu garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsin laakiin waxaa barakadaysan indhihiinna waayo waxbay arkaan iyo dhegihiinna waayo waxbay maqlaan runtii waxaan idinku leeyahay nebiyo badan iyo niman xaqa ayaa doonay inay arkaan waxaad aragtaan mana arkin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana ay maqlin haddaba maqla masaalkii beerreyga mid kasta oo hadalka boqortooyada maqla oo aan garan waxaa u yimaada kan shar kale oo ka dhifta wixii qalbigiisa lagu beeray kan waa kii jidka geestiisa lagu beeray oo kii meelaha dhagaxa lagu beeray waa kan hadalka maqla oo kolkiiba farxad ku qaata xididse isagu male laakiin wakhti yar buu sii jiraa oo goortii dhib ama silac ugu dhaco hadalka aawadiis markiiba waa ka xumaadaa kii qodxanta lagu dhex beerayna waa kan hadalka maqla oo ka welwelidda dunidan iyo sasabidda maalka ayaa hadalka ciijiya oo wuxuu noqdaa midho la'aan kii dhulka wanaagsan lagu beeray waa kan hadalka maqla oo garta oo isagu waa kan midho dhala mid 100 midna 60 midna 30 masaal kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiiyaa nin beertiisa abuur wanaagsan ku abuuray laakiin waxaa yimid cadowgiis intii dadku hurday oo wuxuu sarreenka kaga dhex abuuray gocondho markaasuu tegey laakiin markii geedku soo baxay oo uu midho dhalay markaasaa gocondhadii soo muuqatay kolkaasaa odayga reerka addoommadiisu u yimaadeen oo ku yidhaahdeen sayidow miyaanad abuur wanaagsan beertaada ku abuurin xaggee haddaba gocondhadu uga timid wuxuu ku yidhi
nin cadowa ayaa waxaan sameeyey. Addoommadii waxay ku yidhaahdeen, ma waxaad doonaysaa haddaba inaannu tagno oo ururinno? Wuxuuse ku yidhi, maya, waaba intaas oo goortaad gocondhada ururinaysaan aad sarreenka la rujisaan. Labadooduba ha isla baxaan ilaa beergoyska, oo wakhtiga beergoysta waxaan kuwa gooya ku odhanayaa, horta waxaad ururisaan gocondhadii oo xidhmo u xidha in la gubo, laakiin sarreenka ku soo ururiya maqsinkayga. Masaal kale ayuu saaray oo wuxuu yidhi, boqortooyada jannadu waxay u eg tahay iniin khardal tan uu nin qaaday oo beertiisa ku beeray. Taas waa ka wada yar tahay iniinaha oo dhan, laakiin goortay weynaato way ka weyn tahay dhalatada oo dhan, oo waxay noqotaa geed dheer si ay shimbiraha cirku u yimaadaan oo laamaheeda ugu degaan. Masaal kale ayuu kula hadlay, boqortooyadu jannada waxay u eg tahay khamiir ka naagi intay qaaday ay 3 qiyaasood oo bura ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen. Waxaan oo dhan ayaa Ciise masaallo ugula hadlay dadkii badnaa, oo masaal-la'aan kulama hadlin iyaga, si ay u noqoto wixii nebiga lagaga dhex hadlay isagoo leh, afkayga waxaan ku furayaa masaallo, oo wax qarsoonaa tan iyo aasaaskii dunida ayaan ku dhawaaqayaa. Markaasuu dadkii badnaa ka tegey oo guriga galay. Xertiisii ayaa u timid oo waxay ku yidhaahdeen, noo caddee masaalkii gocondhadii beerta. Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, kii abuur wanaagsan abuuray waa wiilka aadanaha, beertuna waa dunida. Abuurka wanaagsanina waa wiilasha boqortooyada, gocondhadiina waa wiilasha kanshar kale, oo cadowga abuuraya waa ibliiska. Beergoyskuna waa dhammaadka wakhtiga dunida, kuwa gooyaana waa malaa'igo. Haddaba sidii gocondhadii loo ururiyey oo dab loogu gubay, sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunida. Wiilka aadanaha ayaa malaa'igihiisa diri doona, oo waxay boqortooyadiisa ka ururin doonaan wax kasta oo xumeeya iyo kuwa dembiga fala, oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka. Halkaasaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jiriqsi. Markaasaa kuwa xaqa ku dhalaali doonaan boqortooyada aabbahood sida qorraxdu u dhalaalayso. Kan dhego lahu ha maqlo. Boqortooyadu jannadu waxay u eg tahay maal beer ku qarsoon. Kan nin intuu helay qarsaday, oo farxad aawadeed ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan iibiyey oo beertaas iibsaday. Haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay baayac mushtari luul wanaagsan doonaya. Goortuu xabbad luula oo ganac weyn helay ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan ayuu iibiyey oo iibsaday. Haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay shabag badda lagu tuuray oo cayn walba lagu ururiyey. Kan markuu buuxsamay ay nimanku xeebta ku soo jeedeen, wayna fadhiisteen, oo kuwii wanaagsanaa weelal bay ku ururiyeen, kuwii xumaana way tuureen. Sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu. Malaa'iguhu way soo bixi doonaan, oo waxay kuwa shar kale ka dhex sooci doonaan kuwa xaqa, oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka. Halkaa waxaa jiri doona baroor iyo ilka jiriqsi. Waxyaalahan oo dhan ma garateen? Waxay ku yidhaahdeen, haa. Markaasuu wuxuu ku yidhi, sidaa daraaddeed mid kasta oo culimada ka mida oo xer looga dhigay boqortooyada jannada wuxuu u eg yahay nin beer odaygiis ah oo maalkiisa ka soo saara wax cusub iyo wax duug ah. Kolkii Ciise masaaladan dhameeyey ayuu halkaas ka tegey, oo markuu waddankiisa yimi ayuu sunagogooda wax ku baray. Sidaa darteed way yaabeen oo yidhaahdeen,
ninkani xaggee buu ka helay xigmaddan iyo shuqulladan xoogga leh kanu miyaanu ahayn wiilkii nijaarka miyaan hooyadiis la odhan maryan walaalihiisna yacquub iyo yoose iyo simoon iyo yuudas gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin haddaba kanu xaggee buu waxyaalahan oo dhan ka helay wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahee halkaas shuqullo badan oo xoog leh kuma samayn rumaysad la'aantooda aawadeed